تسجيلات أمناء هواء تقدم ولأول مرة صوت مع صورة لتفسير القرآن الكريم للشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم وحال كفر ديالي عليكم كرتي مالك تعالى ديالك على كفر ديالي بالله وهو اسمنا وحوي لي كره لكم وكريه ومثل كره يوم نفس بن آدم كرهوي وعسى أن تكرهوا وحال الله أركاب لي أن تكرهوا إن كرهان شيء وهو شيء أنا يهي خير لكم مثل خير وعسى أن تحبوا شيئا وحال الله أركاب لي أن على شيئا وهو شر لكم يسمون يهي لي شر وشر دنيا والله على بانا يعلم الأب وأنتم لا تعلمون إنكم حلوا أبدين marka dagaalku iyo jihaadku waxa weey waa fariido oo Ilaahay ka xigta tiiday sida soonka la isugu farad yeelay kutiba alaykum as-siyam loo yiri waxa loo yiri kutiba alaykum al-qital qitalka wala farad yeelay qitalka laakiin isaga waxa yahay heerar oo fiirada waa markii lagu aasi waa soo marnay markii jihaad soo kala maraaxil inuu ahaa mar macnaha dagaalku mamnuuc ahaa iyo mar la idmay iyo mar gaalada qaar la dagaalamay qaarna aan la dagaalamayn iyo mar gaalada la dagaalamay marka waxay ku xiran tahay leeyahay muslimiinta hadda qudradooda iyo awoodooda inta laakiin waa in qof walba uu niyada geliyo inuu jihaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku farad yeelay oo jihaadka uu ku dul qoran yahay oo nabigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam man maata oo lam yaghzu qofkii dhintay aan duulaan jirin oo jihaad Ilaahay dartiisa aanu duulin walam yanwil ghazwa anna niyaysan biir mar duulaan maata ala sabatin min nafaq munaafiquna ku dhintay marka qitaalka Ilaahay baa ku farad yeelay yiri oo huwa kurun lakum wuxuu ka mid yahay waxyaabaha naftu ay karaan oo shariicada Ilaahay waxaa inoo diray qaar waxa jira adag baa jiro culus oo nafta bani aadamka ama ku culus laakiin waxa loo fulinayaa wax ka sii daran baa laga cararaya yani shida ka sii daran ayaa laga fogaanaya cadaabka laga cararaya haddana waxa sare loo fulinayaa waxa loo yahay Ilaahay inuu wuxuu amrayo khayr ku jira loo oo waxa weeye haddii aan muslimiinta ay noqon dad jihaadi kara oo awood leh haday noqon gaalada arladooda dhan qabsanaysa oo waxa gaalnimada zaahir oo kitabka Ilaahay aan meesha ku baabay Ilaahay wuxuu yiri walawla dab'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd hadan Ilaahay dadku soo teen yahay la fasadat al-ard wa arlada washaadi lahay oo shartiga ka qaalin noqon laha aayadda wuxuu yiri Ilaahay walladina kafaru ba'dhum awliyaa ba'd gaalada waxa la qaarkood qaar kale weli ka dhigteen oo isku xiran waa filaansanayaan illa tafcalu hadina sida yeelin bali oo idinku awliyaa isku noqon oo dad xisraayo walaalo isku kala noqon waxa la yiri yani takun fil ardi wa fasad kabir arlada fitna ahaanaysa iyo fitna marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala arrimaha uu yahay sida daraaddeed muuminiintu waxay ku farad yeelay inay jihaadaan jihaadka waqti jidana waxa weeye cadaab Ilaahay buu marasi uu diyaar ahaanaya Ilaahay wuxuu illa tanfiru yu'adikum cadaban alima hadayna soo gurman oo jihaadku soo bixin Ilaahay waa cadaabaya cadaban aliman wa yastabdil qawman ghayrakum qawm kana wala tabdal qaadanaya bal marka labadaas sabab waxa weeye jihaadku waa loo jihaadaya mar waxa weeye cadaabka Ilaahay waa looga cararaya oo jihaadkan dhibkiisa ugu weyn waxa weeye adiga oo dhintay wax kale ma dhimashadana waxa weeye mar walba waa kusii marka waxa weeye shicaar cadaabka Ilaahay uga badbaadid baajiyada loo aadayo loo jihaadaya waxa kale loo jihaadaya Ilaahay inuu maaragtay isoo xakiim yahay oo wax wanaagsan amrayo oo hadii aan la jihaadin in diinta Ilaahay ay hoos marayso oo gaalada kelmadooda kor marayso oo suldaantii awood yaran gaalada yeelanayso sida maanta adduunka muuqata taas un baa imaanaysa la yiraahdo la jihaadin marka banaadamku marka ra'yigiisa haweenka wax ku miisaamin baa la doonaya waxa laga yaabaa inaa waxa jeceshahay Ilaahay aad ku xiyeen baa laga yaabaa wax aad ma ka reeysin Ilaahay aad ka ficin baa laga yaabaa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun bahdiba yas'alunaka waxay ku weydiinayaan aan shahr al-haram bisha marka farmada leeyahay ku weydiinayaan qitaalan fihi dagaal ahayd dhexdiisa la weydiinaya oo waxa soo deeyay aayadana waxa la yiraahdaa markii muslimiintu ay dagaalameen bishii Rajab maalintii u dambeysay iyadoo waagi hore dhig daadan muslimiinta markii nabigu haajiray sallallahu alayhi wasallam Madiina aaday waxa la yiri rasuulku wuxuu diray niman ilaa tumanaya ah markaas wuxuu yiri amiir waxa ay kaga dhigaayaan ninka ugu adkaysiga badan oo kiisaasada Abdullah ibn Jahsh amiir uga dhigay wuxuu yiri laba maalmood markaas socday kitaabkan fur oo akhriyo warqad buu qoray marka laba maalmood soconayo akhriyo waxa ku taal waxa la rabaa inaad maka dhaaftaan oo meesha nakhla la yiraahdo oo maka iyo baar ku dhaxaysa Afghanistan oo tijaaro Quraysh leedahay koonfurka imaanaysa markana marka cadow weeyo oo meesha laga soo haajirayo makada ka rabaa in la gudbo oo laga shamro markaas waxa la rabaa tijaaro in Afghanistan oo markaas aad tijaaro qabataan nimanka saaxiibada ah Ibrahim iyo ninka faraaca saxaysuu ninka diidana iska daaday sidoo kale Abdullah ibn Jahsh meeshii bay tageen laba nin baa dhaxal oo arrintii inta ka lumay ka haray Sa'd bin Abi Waqqas iyo Usad bin Ghazwan
intii kalaa waxay tegeen baa lay meesha bishii rajab baana la marayay maalintii dambaysa tijaarada tegeen baa lay meesha soo marka waxay jiraan la dagaalamaan qaar waxay yiraahdeen shaar xaram la dagaalamayna shaar xaramna gaaladu hore ma dagaalami jirin carabtu waxay qabeen islaam ma ay dagaalami jirin oo waxay ogaayeen in ilaahay xarmo gaar u yeelay islaamkuna sidii uu sheegay waa diin sax waxa way xaq ah way oo diinta la yiraahdo kamid ah marka hadii ay iska daayaan maalintaana waxay noqonaysaa dhulka xaramka ay gelayaan marka gaaladu marka waxay yiraahdeen waxa u soo baxay waa arrintan beena siyaadadan haddana maanta la dagaalamin oo bisha xaramka ana bari la dagaalamayna dhulka xaramka la dagaalamayna marka marwada haddaan xurmo joognay la yiraahdeen maanta way dhaafin diiray sidii way yeeleen marka waa la dagaalameen waxay ka dileen nin yani Amr ibn Hadrami la oran jiray laba nin waa qabteen ninna waa ka baxsaday labadii nin tijaabada keeneen arrinta marka dacaayad weyn baa ka timid oo gaaladii aniga ku dacaayay waxay yiraahdeen Maxamed wuxuu lagu yeerahay raac Allah in la taco isagana bilaabay marka xurmadii in la jabiyo bilay xurmada la aabiray limeesana waxa arrinta waa la weynaatay nabiga xataa waxa la yiri alayhi salaatu wasalaam ma kama qaban baa qanimadii maalka ay keeneen kama qaadin baa iyadoo xaaladdaas ayadan soo dhigan marka oo arrintii lagu daaweynayo wuxuu Allah yiri subhanahu yasalunaka waxay ku weydiinayaan aan shahril xaraam bisha xaraamka ay ku weydiinayaan qitaalin fihi dagaal ahaaday dhexdiisa qul waxa tiraahdaa qitaalun fihi dagaal dhexdiisa ahaaday kabiirun waa weyn yahay oo bisha in la dagaalamaa waa weyn tahay rajab keliyana ma ahan waxa la mid ah 3 bilood isku xiga oo kale ee la yiraahdo dilqaada iyo dilxajja iyo muharram afarta waxa la ashhurul hurum إلهي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أفر حرم لا تكتب ومعناها الدنبي على السمية والدنبي كسي وينانه وبعض على السمية بعض كسي وينانه مركز لها وحي كويدينها يا ديال دحيس هذه وحكر هذا ديال كاسي وين هي وارين كبير وين لكن واحد قالوا سمينا ايان ايا كسي وين وصد عن سبيل الله علين لقى علينا هي ضد كبالي شدك الله وإسلام كأه وقالوا اي سمينيين وكفر به يكفرين الله لو كفرين هاي الله شريك يليه هي والمسجد الحرام المسجد الحرام وضدك اللي قاعدين هاي وحي كعطفنت عن سبيل الله وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام المسجد الحرام وضدك اللي قاعدين هاي وإخراج أهله أهل كيسي ولا قبل حين هاي منه مسجد اللي قص هاي ومكة وحوي أهل التوحيد ومعصوص وقحيان وقصص وهاجرين مركز الدنبي ياسر وحوي قالوا كل بيسوي الإسلام مركز وإخراج أهله بحنت اللي قبل حين أهل كيسي منه مسجد اللي قبل حين هاي arrinka waa asbaru ka weynaan badan bari inta Allah la aad oo ninka la dilay oo dhiga daatay bishii maalintii yani bishii rajab kamid ahayd waxa ka weyn baa la yirgaado waxay sameynayaan bad weyn wal fitnada iyo shirkiguna asbaru waa ka weyn min al qatl dil oo qofka in la dilo iyo inuu fitnado waxa daran baa leeyahay mar inuu fitnado waa weyn baa wal fitnatu asbaru min al qatl wala yazaluna man kasula ayaan bal gaaladu yuqatilunakum inay la dirirayaan حتى يردوكم إلى إنكعليان بأنجينكم دينتين إن استطاعوها دي أودان وقالوا مرنا سوقي ما ينبري إلا إن دينت إنكوز عليان مويه إلهي سبحانه وتعالى أساس إنه شيء جاي مركز أساوحي كينيسا مؤمنين إن مرنا استيغان وقالوا إن رجال إن دينت ودى أيان دينت إن هايست إلا أرندونا قالوا إن دينت مواد كيسين كران وحوى حمان توي مقنع مركز دادتوسن وحوى لما أعرف السرا دادت مركز فدروا بابا سنسا وإلهي أشرق يلا أيان قال لما يدغن حنو الجاهلية وكتق معيان dadka wanaagsan aragooda dhibahaya oo dadkaas waxa way wax xusuusinayaan qaloocoodii marka ay arkaan dadkaada qaloocoodii soo garanayaan marka waxay jecel yihiin dadka in la zuuriyo jecel yihiin nabi luud waxay ku yiraahdeen yaani akhriju ala luud min qaryatikum magaalada laga saareeyay reer luud innahum unaasun yatadaharuna waa dad istahiraya oo daharadii la dirirayaan waa dad dahara iyo maaragtay toosnaan iyo wanaag doonaya naga saareeyay marka waxay xusaadii kaligood ay yihiin waxa way yaani wax fakhransan kale noqonayaan iskaran maayaan laakiin hadda maalin walba dadka ay arkayaan ama lagu agshay sheegay يا واحد خصوصي نساجي بعدين ضلال كل من قلبه ولا جبنية ولا فدرة واحد جدا بنادم كلهم واحد كفدرة إسلام كله حق يا كفدرة بنادم كلهم مركز الوشة ودريميا مركز بعدين زين وار ربنا هو نفسه ولا قبطي وقاب شيء أرنتا مركز حاول مرنا متشويان إلى ذكر يسوع عليان دين تيسوع عليان حيرتر إن نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودون في ملتنا أما بلكم نورثها أما من الذي كسر لغة يورثنا الله يسير ولا يزالون تنزل أيان يقاتلونكم هنا يلدى علميان حتى يردوكم إلى يكعليان عن دينكم دينتين يعني المسجدين وطان إن استطاعوها دي أودان بل ومن يرتدد كي كلا بتالي وكر الدوبة منكم ومنك ينكمل عن دينه دينته سكر الدوبة فيمد أمرك عن إنسالي وهو كافر نسوه كافر أو مشرق الإنسان فأولئك فوا حبطت أعمالهم أعماش دوابا بابي في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة عمل كوابا بابي وأولئك كوا سحويا أصحاب النار أصحاب النار توي
هم فيها خالدون يو وحوي دحدها خالدين كوك واري marka faham aayadahaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo leeyahay waa saxaabadu waxa way ula dagaalameen dadkii ridoobay waxay ogaayeen dadka wax amal inay lahayn maadaama ay ridoobeen oo waxay ku ridoobeen waxa way zakadii diideen oo yeelin meel laga yiraahdeen rasuulka Ilaahay aan siin jirnay Abu Bakar maxaa uga jiray yiraahdeen oo ku gabiyeen abana rasuulullaahi ma kana baynana fiya cibaadallahi ma la Abu Bakar oranay Abu Bakar maxaa uga jiray yiraahdeen rasuulka Ilaahay waan siin jirnay marka dadkii saas ahaa saxaabadu kama shaqeeyeen salaadooda iyo tawxiidkooda ay sheeganayaan lagama shakiyin waxay ogyihiin Ilaahay inuu sheegay wixii ridooda oo kufri ku dhaca illa kufr ibaa wal istikbar way hadii amar Ilaahay la diido waajib la diido oo yeeli ma yeelaya dagaal ba xiga la yiraahdo waa gaalnimo waa tii ibliis galayo kale way marka waxay ogaayeen dadka wax amal inay lahayn oo salaadooda iyo tawxiidka aad ka leeyihiin waxba ahayn ay garanayeen waa la dagaalamay waa la gubay si xun baa loo laayay ilaa markii dambe maarka islaamka soo noqdeen oo qarqarteen maarka baadidoodii iyaga qaar badan ba waxay isku haysteen inay gaaloobin oo mid baa wixii la yiri ma kafarna billahi walakin shahahna bi amwalina annahu ma anna gaaloobina maalka la bakhilna yiri maalka la bakhil laakiin aridu waa gaalnimo waa maal fariida oo arkaan islaam kamida oo Ilaahay bixiyay yiri Ilaahay farad yeelay buu yeelay min diin meel yiri kiira tukan maayo waa lamid kiira lama soomi karo waa lamid oo ma soomin la yiraahdo waa lamid hadii la xalaalsanayo marka waajibaad Ilaahay kamida sidaas ay arintu noqonayso saxaabadu marka cilmigaada ilaayeen quraanka garanayeen dadka kama shakiyin waa laayeen waxa kale oo jiray banu Xaniifa qolo la yiraahdo iyo la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ilaahi oo salaadii tukanaya hadana waxay yiraahdeen musaylamana waa rasuul allah iyana saxaabada kama shakiyin waxay garanayeen qofka inuu inkiray aayadii oranaysa nabi maxamed nabiyaasha ugu dambeeyay khaatabul nabiyiin ilaahay ku tilmaamay inay beeniyeen bay garanayeen sharciyo dhan in la tuura iimaanaysa maadaama nabi kale oo beena ay sheegayaan kitaabkii dhan lagu kufriyay bay noqonaysaa ila kitaabkii waxa la oranayaa haduu musaylama bedelay la oranayaa haduu marka dadkaana waxa way kama shakiyin saxaabadu waa laayeen haweenkooda xataa waa qaybsadeen qaar baa waxa weeye yani qayb saxaabadii waaweyn qaarkood qayb u heleen waagi dambe imaam ibn Taymiyyah waqtigiisina sidaas kala dhacday qolo islaam sheeganayso la ilaaha illa allah afka kale oo aadaamaysa ayaa waxay ahaayeen kitaab waxay wateen ahkaam oo yaashiq la yaasar dad loorin jiray kitaab al yaashiq la yiraahdo Jinkis Khan uu qoray bay wateen oo ku kala bixi jireen sharciga Ilaahay kuma kala bixi jirin ninkii tukada isku mid bay ahaayeen waa wada dhaxyaayeen taariikh salaadka dambiila soo kama ahayn kii tukadana nin fiican baa la oranay wixii sida ahaaba weerar waxay ku soo qaadeen wadanka islaamka Shaam dad baa ka shakiyay waxay yiraahdeen qoom la ilaaha illa allah oo aan nin imaama baacadina ka bixin ee dhul fog nooga yimid si oo dagaalamay imaam ibn Taymiyyah wuxuu yiri haddaad aragtaan aniga qiimo taqaanin bi haddaad aragtaan aniga xaq ku jeeda oo kitaab quraan madax ii saaran yahay xataa idilab hayga shakiyay qodaan laga mashkiin karo yiri waa gaalow waa maanic zakad oo kale bi oo ku zakada dawaa Abu Bakr laayay oo kale weey Abu Bakr iyo Umar iyo Uthman iyo Ali dhammaan joog laayeen bi amal waxay ka bilaawday laayeen bir gaalaan in laayaan yaa ku surminina afka waxay kala yihiin amal kooda fiiriyay marka dadka diinta Ilaahay saasi maartay ay u fidiyeen jireen Ilaahay baa sheegay murtad in amalkiisu baabaayo marka maxaa laga qabanayaa salaadiisii iyo shaadiisii sidoo ku sugan yahay arrin kufriga marka dhex joogaada أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بل وأولئك أصحاب النار وأنا أصحاب النار هم فيها خالدون وفي الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا كوا الله رمي والذين هاجروا كوا هاجري كوا الله رمي وحدي وهاجري وجاهدوا وجهادي في سبيل الله شفت الله نكو شهادي أولئك كوا يرجون رجين يا رحمة الله رحمة الله والله غفور رحيم الله هو غفور رحيم هذا ناحي بابين يسوي عقيدة مرجئة بابين يسوي ضد معناها الرجال كلي إلهي فعبده ضد وحوي يالي رغار الله رجال كلي فعبده وإلهي هو غفور رحيم بكليه انتي كبائر سميان وإلهي كتاب في سبيعان وحي إليهم الله هو غفور رحيم برك إلهي إنه غفور رحيم يا كليه بمارسي يعني الله فعبده يعني شديد العقاب إنه يهي إلا وينمر لبضع وحل دونه إن قفك مسلم كأوفمتين إلهي وحير النبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وشهد أدومه الله يرينا غفور رحيم عاي عذاب كيقولي عذاب حمود بغن مركب وحال الدونا إنا هديل الدنبابنا عن لقوصا وإلهي غفور رحيم يالهم أيه وإن ربك الذي مغفرة للناس على ظلمهم إلهي ومن مغفرة بغن بالي أطفرد بغن يوه بنائه قفيان أي إلهي أطفر هذا وإن ربك لشديد العقاب وأنا شديد العقاب عقاب تنادرا مركب شديد العقاب نوحي قوب بحنيسا إنا لنمارس إنا كعرف سيدمارس مش إلهي نعيبه يوضل كفقات غفور رحيم نوحي قوب بحنيسا إنا لنقوصا يقوب بحنيسا كو قوسنا إلهي وحن شيئين قاليه وحل يري فلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون كو إلهي مكره كأن من غنى يا وخسرين بالي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مركز ذكر رجينا يا إلهي رحمن جزوح لي وكو عمل كسمين يلي
الذين آمنوا إيمان بالله هذين توحيد هاجروا وهاجرين بل يروح قالوا سقطنا ماشي دار الإسلام كهذه آذن وهجروا بدنا وحى الحريري في دباتين بالحريري دول إن مرة خطر أن لا جدبه مالكي إن لا جت مرة كخارج عروتي إن لا عرض بينانك مرة كوا هجروا بل يروح جاهدوا في سبيل الله هدنا جهادي إلهي طريقة هذه والنفس مال بهري كوا وحي رجينا أيام بل رحمة الله رحمة الله ورحمة الله وحي يقولها لي إن رحمة الله قريب من المحسنين تقولها لكن قف ظالم ودندي سكتر ورنا إلهي غفور رحيم وي كوحوي مر رجينا هي اللي اقتربوا كسبين ما أولئك يرجون رحمة الله بيرجينا ينقوا بالي والله ألانا غفور رحيم وحي ورشنا الدكتور ونكسنا من عبد الله بالرجاء قلت الله رجاك عبدا فهو مرجئ بورشنا ومن عبد الله بالخوف قلت إلهي عبدك عبدنا فهو حروري وخوارج بورشنا خوارج وحي إلهي عبدك زائد سؤهد بالي رجلي بالله وين فقالوا قلت الدنباب وحي ملينا ينو قالوا ريب مات إلهي بوعيد في سبيل وابقالوا بورشنا وادنباب وابقالوا بورني كوا إن waxa weeye wax kasta sameey waxay ku laayeen iimaanka waa kaamil kana ilaahay galaysa malaa'ikta la mid ay ku laayeen qofkii qabaa'ir sameeyay waxay oranayeen iimaankiisa waa ka iimaan jibriil malak jibriil bula iimaan oranayeen يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك waxay ku weydiinayaan oo nabiga ayaa la weydiinaya dadka weydiiyay baa leeyahay عن الخمر khamrada ku weydiinayaan والميسر iyo khamaarka ku weydiinayaan labadooda waxay ahaan jireen arrimo caan ku amar jasiirada carabta waagii qabla islaamka khamrada iyo meysirka aad baa looga yaqaanaa marka waxay ku weydiinayaan khamrada iyo meysirka qul waxa tirada fiima waxa ku sugan dhaxdooda ismun kabiirun ismi waa ku sugan balay dambi maartay kabiirun weyn xumaan weyn baa ku jirta la yiri waa manaafic iyo waxtar oo linaas dadka ay u leedahay oo waxtarna waa leedahay la yiri labadooda waxtarna waa leeyihiin ismi weynna waa leeyihiin واسمهما يعني حمان تودا اسم جودانا أكبر كوين بالي من نفعهما واحترتهما مرتا وحا لي خمرد وحي أهيد أحياء عادة مارت عربتها هوري قبل الإسلام وحاad udhex gal carabta ahayd oo mujtamaca carabiga ah oo aad u isticmaalo sabrada waxay ahayd waxyaabaha ay ku faanaan oo mafaakhirun bay kamid ahayd oo ilaa hataa shucaradooda niman gabayaaga markay gabayayaan waxay ku furi jireen maaragtay ammaanta khamrada inuu khamro ku ammaano marka hore isu muraadkiisa sheegay khamru ammaanahay ama gabar bu ammaanahay kadib waxa uu fadilaawi jiray inuu muraadkii lahaa u sheego hada carabtaas ahayd islaamku wuxuu yimid khamradii hal mar lama reebin oo marna waaxida lama reebin ee waxa lagu reebay si ayar ah ilaa afar jeer baa laga hadlay markii u dambeysay baa la ka joogsadaa inta kale waxa weey hadda meel baa laga tusayay xumaanta ay leedahay ayadu wuxuu khamrada laga hadlay waxay ahayd ayad suurta naxl ku jirta ilaahay yiri min samaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana miraha waxa la yiri timirta iyo canabka waxa ka dhigayaan baa la yiri wax lagu sakhraamo iyo rizqan hasanan rizqi maar hasan oo wanaagsan marka aayada waxa laga ogaaday baa la yiri khamradu yaani inay kamid ahayn rizqiga hasanka ah oo rizqiga bayirka oo wanaagsan inay ku jirin ayaa la sheegay laakiin waa xaraan lama oran kadib waxa weey leeyahay weydiin jireen alayhi salaatu wasalaam iyadana waxa weey waxyaabo ee qofka mu'minka ah dhibahayna way leedahay oo wax mar aqligaaga doorinayo way oo ku bedelayo oo qofka saacada laga yaabaa inuu noqdo wax aan wax kala garanayo oo doqon ah baa khamrada cabdo سأدراد النبي ويدين سلنا عليه الصلاة والسلام أيضا لما حرمين لكن وحلا يري منافعنا والدها حما كوين والدها لي حمان كذا كوين منفعة ذلك سأدراد ضد مركز الإسكداية اللي يريدوا أن إلهي الإسكداية أورن أو صوص أورن وحلا ضد الإسكدايين هدي اللي سويديو مارك منافع إلهي خمرة إيه خمار في الحي فائدة ولا هنا فائدة كنت تقام حي وحلا يري وحاوي خمرة ضد كورن ولا أو شقي سنكري oo canabka markii ay soo go'o dad baa gadanayay oo ka sameyn jiray khamrada ay ka mushkili jireen waa safrin jireen lacag ay ka heli jireen khayr dhan baa markii ku noolaa khamrada maytarkana waxa la yiri wuxuu ahaa nimanka maalqabeenka oo maarka reer baadiyaha carabta ah dadka maalqabeenka ah oo geela badan leh markii abaar dhacdo xilliga roobka laga gudbo nimanka maalqabeenka xoolaha badan ayaa khamaari jiray marka ninkii laga helo ayaa lagu xukumi jiray marka uu leef biray leef geela يلا كسا uga bixi jireen khamar bay uga bixi jireen marka neefka la qalahay masaakiinta ay ku noolaayeen oo masaakiinta iyo abaarta uga bixi jiray baa labadooda laakiin ilaahay wuxuu ku sheegay markii u dambeysay aayad u dambeysay lagu xarimay waa amal shaydaan baa lagu tilmaamay labadooda iska daayeen aayadan markii iyo alla xarimin baa waxa la yiri ismigeeda ka weyn ismigooda labadooda ayaa wuxuu ka weyn yahay manaaficda ay leeyihiin
marka saxaabadu markay Madiina sideen sidii maartay loo cabaayay ayadan waxay soo degtay waa Madiina markale waxa dhacday la yiri saxaabada qaar kamid ah inay isugu yimaadeen guri oo meel aroos u jiray oo lagu cabay khamradii markii la cabay inay tukadaan tabaan in saxaabi la hormariyay saxaabigii qolay al-kafirun inta damacay akhriyo ayuu waxa la yiri si qaldan u akhriyay oo wuxuu yiri a'budu ma ta'budun waan aabuday waxa aabudaysaan baa ta kamid ahaa bal wuxuu akhriyo marka aayad kale soo degtay saddexaad oo Ilaahay wuxuu yiri yaa ayyuhalladheena aamanu la taqrabus salata wa antum sukara salaada u dhawaanina idinku saxsan حتى تعلموا ما تقولون في أبو قرطان باليري وحسيسان وأخيسان مرتي آيات ay soo degatayna waxa la yiri dad kale iska sii daaya dana khabradii maxay yeelay waqtigeedii ciriiri noqday qofkii duhur kadib cabba casarkii waxa way waa saxaansan taasna aayadu waa reebtay waxa la yiraahdo saxaansan ma imanka salaad waa in marka bacda duhur aan la cabin oo bacda casr aan la cabin maadaama maqribka soo dhow yahay bacda maqribna aan la cabin maadaama cishii soo dhow yahay waqtigeedii marka waa yaraaday wuxuu noqday la yiri cishaa kadib iyo maartay salaad wax kadib iyo inta maraysa markii u dambeysay aayadii Maa'ida loo xarimay oo tahriimkii yaani qadciga ah u dambeeyay suurada Maa'ida lagu soo dejiyay Ilaahay wuxuu yiri yaa ayyuhalladheena aamanu fa allahu rumeeyo innamal khamru wal maysir wal khamrada iyo maysir wal ansaabu wal azlamu rijsun min amal shaytaan wa rijs yuqurun amal shaytaan fajtanibuhu ka fogaada la'allakum tuflihun ya ulil albab inma yuridu shaytaanu shaytaanka doonaya la yiri an yuqa'a baynakum al adaawa inuu adaawo in dhexgeliyo wal bagdaa yasna'id fil khamri wal maysir khamrada iyo maysir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إن كحل الصلاة ذكر الله ودونية فهل أنتم منتهون مكهر يسامبلي لك عمر بن الخطاب هذا اليوم تبكي خمسة أبكى مارس عنكو هنسري قبل الإسلام ومر خشتين حتى صوت الإسلام وحير كنت رجل خمر من خمران أهابي يعني خمر أبدا إيمان هج كانوا وحن طبعا همين إلى الآدم ليش خمر الوعب بشري فليش يحرم بنتري صحيح في ثلاث هذه أنا رسول شكيستو سوى مقيه مركب عن سيري ويربك عبد ما يسوي الدور wuxuu kala kulmay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam oo Quraan akhrinay markaa uu dhigay markii hore waxa la yiraahdaa iimaanka qalbigiisa uu galay markii aayadaha soo digayeen aayadaha markii soo digtay waxa la yiri kama harin khabradii Umar markii la yiri xumaanteeda ka badan yaani manfaacada waxa ka badan baa la sharxay Umar wuxuu yiri Allahumma bayyin lana ilaahu noo cadeeyo yiri fil khamri bayana shaafiya ilaahu bayan sifka aan noo shaafiyo oo noo daaweeyo ilaahu noo cadeeyo waana si fiican bikrale markii soo digtay aayadii kale oo la yiri salaadaha iimaanina waa antu sukara Umar baa loo akhriyay la yiri wuxuu yiri Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shaafiya hadal kuru ku sicilay ilaahu si fiican oo cadeeyo salim waana iska sii waday ila aayad u dambeysay soo digtay oo la yiri faal antum muntahuun makaaraysan markii la yiri intahayna waa saarnay sidii uga haray marka waxa la yiraahdaa waxay kamid tahay xigmada islaamka waxyaabaha dadka noloshooda aad u dhaxgalay marka waaxid lama goyn jirin marka aayad ayaa markii loo xarimi jiray قل واحد رضا فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اسم قوي حمان توضع أكبر كوين من نفعهما واحتركوها ويسألونك وحي كويدينيا ماذا ينفقون محيب بحين ينبي كويدينيا قل العفو قل واحد رضا العفو زيادة بحية وحي كذا إذا مارت وحيابها يعني أهورت إهلك وحي كذا إذا عمضوا بحية بالي معه قل العفو بحية marka asligaas wixii zaa'isa xidda waxa weeye waa inay bixiyaan oo khayr badan oo hadii midalan soo yihiin maartay dad faafsan oo dhibaataysan iyagana wax markaa waxay cunayaan wax ka faa'iidayaan waa inay waajib tahay ila laga qaadanayo marka inuu gargaaraan u bixiyaan markaa al-afwa bixiyaan bal isaarkuna waa jiraba marka wixii hataa aan afka gaarin oo marka loo baahan yahay waxa u baahan inaad bixisid oo dadka rasiisidna waa arrin kale oo ka sii harfareysa oo Ilaahay ku amaanay dadkii wanaagsanaa muuminiinta ansaartii wayuturuna ala anfusihim bal naftooda ugu eexiyaan oo kana bil khasaasa u baahnadaan كذلك يبين الله لكم الآيات سيدا الله ينكو بيانها يبالي الآيات آياته ينكو بيانها يا لعلكم تتفكرون في أن فكرتان بولا سيادون نقطان كو فكرها هي ووحاهم إيوحا وناسين خلقرتها تتفكرون وفكرتان بالير في الدنيا والآخرة الدنيا في آخرة الدنيا في آخرة ما أهل الله اللي يسكو أمانها قفكي الدنيا مارسي دونتان إنو آخر وايا هي قفكي مارس لما هو اسكملها يان بالي marka iskamilha ayaan oo markii adduunyada lagu toosiyay oo istiqaamay adduunyadii la camirayo oo yaani risqiga Ilaahay laga dhaxyaarsanayo oo fi manaakibaha oo kullu min risqihi wa Allah adduunyada markii laakiin ahdiga Ilaahay lagu ilaalinayo oo xalaashii xaaraanta loo fiirinayo sharciga Allah
ووحي إلهي ومقعابي سيدة خمرها يميسرك وحي إلهي حرمي ودنا لسك إلى لنا وحي إلهي سبحانه وتعالى ويعني بنينا الله سمينها marka adduunyada ay noqonayso mid aakhiradaadii ku dhisaysa oo adduunkan waxaad qabanaysid baa aakhirada ku dhismaysa marka ma kala hari karaan waa laba isku xiran waa daaru ibtilaa wa amal iyo daaru xisaab wa jazaa dalil waa daar xisaab iyo abaal marin iyo daar maartay imtixaan iyo amal sameeyay weey marka amalka la sameeynayo adduunkan lagu khilaafada ah adduunkan lagu dhaqmaayo waa mid aakhirada ku wanaagsanaamaysa ويسألونك وحي سؤالها يانو كلالي عن السماء أقوم في حكاوي دينيا قل وحا ترى إصلاح لهم خير يعني وناجين لهم إيغلا وناجي أي خير بلنبل وإن تخالطوهم هداد يعني وحي سكتر سسانا وإسلح جشانا ومخالطة ومركة دكتور إسلح جلان ومركة وحسلعونان ودرسانوي فإخوانكم وولاليهم بالي والله ألهنا يعلم وأجيه المفسد من المصلح قفت المفسد كو حمينها إلهي وكأجيه من المصلح كو حسوبينها هذا جنيه ولو شاء الله نهدو دون لها لعنتكم وإن يدين كري أو إلهي وحعاد ومشقاء وينكو كلفي كراء لكن إن الله عزيز حكيم إلهي المرضي من مارس معنا الله هو عزيز وحكيم وإلهي سبحانه وتعالى لما غالبها سيا وحوي عزيز أن كان مرنا على قال المغن كريم حكيم كأو فلك صبون مرت الله سبحانه وتعالى هديه شرعيه وحعاد أو مشقاء بلانك أدره إذا نكا مهر إيمانك وإن لفليؤم بين غنى ذليل بالله غنى يا حي الله هو عزيز وأنا حكيم ووفى أمرها يؤمن بحكمة بكتابين مركب آياتها كهلا يا مركب أغانت وهريين والقرآن المكي جب الله وشيكي أغانت مالك عن العون الكريم تعالى والوعي عيبي إن مالك أغانت عنان يعني محل يرى الرئيس الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فاليتيم كما رسها ربنا يعطي وليه سكريحية ويالي كان آخرانهم اثنين مؤمنين محل يرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده إليه لا أشده تجاره وكان جار حولها أغان كود وغانينا لي مرة دي وغفق بالغو وحاول أغان لم يرى هذا لمر أراكره تصورك يرى الله يسمى بعد احتلام يعني أغانيه مكتوبي المهد وغفق قان جاره وعقليه السماء مرة أغان تهرى الله ظهر لي إن حولها هود وغانينا مركو حكي إيمانيسا إنت استقارك وأركان با حولها سيدي وحنا سياسة وكله ولا iska ilaaliyo oo biyaha aan la darsan oo laga cabin oo wax laga qaadan iyo dhanba si wax maartay sida la isaga dhowro sida eeyga iyo kale isaga dhowro sabab gaarsiinaysa taa marka ayadahan daaweynayaan waxa la yiraahdo walaalihiin baliyo waa inta khaaliduhum hadaad maartay isku labashaan oo isxgashaan waa walaalihiin baliyo allahna waa kala yaqaanay mufsidka xoolaha agoonta raba inuu xumeeyo iyo kan xoolaha agoonta hagaajinaya oo dhaqanka wanaagsan islaamnimo ku dhaxgalaya ilaahay waa kala garanayaa marka waxa la leeyahay wixii maalinta ay karsadaan oo kale dadka ay wax ka siiyaan waa laga aqbalaya iyagana markooda waa la siinayaa sida mucaamalada caadi oo muslimiinta dhexaysa ka mid yihiin laakiin waxa la diidayaa xoolahoodii in xoola laga tabcado maal laga tabcado la diidayo ولا تنكحوا المشركات حقوسنين والله يرى المشركات هو الله أشريك له وهوينك مشركات كحقوسنين حتى يؤمننا إلى الله ميان marka rumaynta ka maqan mushrikaadka waxa weeye iyo Allah waajaa inuu jiro garanayaan hadii la yiraahdo Soomaaliya garnada awra Allah bay oran jireen yaa idinkeedan awra hadii la yiraahdo Allah bay oranayaan iimaanka ka maqan waxa weeye waa iimaanka maartay sayyidul uluhiyya way Allah shiri oo la caabudo oo loo shiriigeen kaligiina amarkiisa iyo sharaacadiisa la raaco kaaba ka maqan mushrikiin marka waxa weeye xataa yuumina ilaa iimaanka ay la yimaadaan oo mu'miniin noqdaan muwaxidiin oo Allah shiri caabudayo oo shirkay ka baraa qaataan waxa la yirma guursan kartaan waa la inta xarimay ولا أمة مؤمنة ولا أمة جبر مارس أماه وأضانه ومؤمنة الله هو حدي خير بسخير بدل من مشركة جبر مشركة ولو أعجبتكم هبائن عجب جلسية يعني إذا عجب جلسه نصب كذا يقرح كذا يمال كذا إذا عجب جلي مر والبروح اللي يرى أضان مؤمنة أيها خير بدل مرك أضان الشيء هي وحوي وقف صومر مارس أضان سوي ما كثير كساعة هذا قف دمر بأضان صومره بروح لهذا يعني هدوني هنا عبد بلي هدو جبري هنا أمه بلي هذا وأضان مركز ضدك صومري مارس أضان سي صومري دس عرفتها وسفين شرين وحقير شرين مركز إله سبحانه وتعالى فليه أما ومؤمنات أيها سخير بدن إلى الجوستان بسخير بدن جبر مشركات أبالي سكة سهدين عجب جريسان ولا تنكحوها أجورنين المشركين كأجورنين أنك حابي تسعطاه وأجوري نكحنا وأجور سدوي فيها روح هاي نكح ينكح فنوا أنكح تنكح
ولا تنكحوا مركها أجورنين بل المشركين ومشركين فأجورنين حتى يؤمنوا إلى الله وحيدان وموحدين نقدان ولا عبد المؤمن أدون مؤمن أفعلي ونن أدون في ولك شراء لكن الله رمي وحيدي خير باخير بلان معناه هنا الجورسان من مشرك من الله وشرك إليه ولو أعجبكم هذا عجب قليل مثل كاسمارك مشرقة ومال في سيء سيئنا قوة سيئة أودي سيئة عجب قليل مركا إلهي سوف أديها يكوى إن لو جوري أم لا يجورسوا حوي أولئك يدعون إلى النار وحي أغير هيان ضد كبالي إلى النار بأغير هيان أهل الشرك وضد وحي أغير النار ودفعية دلنا يسوح النار بأغير هيان مركا قفنا مدونها يا دفعية سيئة النار قلان قفت فكرة مارتي جبدي سي من مشرقة دفعية waxay noqonayaan kuwa naar lagu yeerayo ninka aabaha u noqonaya markay wuxuu noqonayaa mid naar ugu yeerayo sidoo kale haweenka mushrikada ana waa mid iyaduna carruurtii naar ugu yeeraysa leeyaan أولئك يدعون إلى النار بدرس ويرهيان والله الله يدعو ويرهيا إلى الجنة سن ويرهيا ضدك والمغفرة إذن بالله بإذن كذا كل عهية ويرهي عد الدون وافتشنيه ويبين آياته آيين سنة وعدينها للناس ضدك وعدينها لعلهم يتذكرون شيء واهتمام وتذكير الأمارة وانفعله أي إله سبحانه وتعالى آيها وعدينها marka aayadaha waxay kareen marka waxa weeye mushrikaadka guurkooda iyo nimanka mushrikiinta oo loo guuriyo ay aayadahan xarimeen laakiin markii la gaaray sanadii 10aad oo maaragtay taariikhda islaamka oo hijriyada aayihii soo degay suuratul maa'ida ayaa waxa laga reebay gabdhaha ahlu kitaabka laga reebay oo gabdhaha ahlu kitaabka laga reebay nimanka ahlu kitaabka laakiin lama guurin karo sidii xaraam ah maaragtay walaa tunkihul mushrikiina wili lama guurin karo لكن قبلها مارتي على كتاب كا أو يهودية ده هيسا أما نصرانية ده هيسا أو لكن مركز هرانا دورسنا أو كل جروب سوا أو حماسي أقولين أو جروب كل دورسون هو بالبني إلى الدورسون إلى يحير اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن بس هذا أجر فوق الكتاب ولا بني marka sanadaas waxa la baneeyay dabeexada ahlu kitaabka ay dirayaan wixii ay cunno u qashaan iyo haweenkooda oo muxsanaadka ah ayaa maartay la baneeyay in macnaha ilaahay subhanahu wa ta'ala xalaal uga dhigay sababta marka ahlu kitaabka looga duway maartay ahlu shirkiga kale ahlu orsaanka iyo looga duway waxa weeyaan leeyahay ahlu kitaabku waxay haystaan kitaab mana sheeganayaan maartay diinta islaamkana sheegan maayaan yahuudiga sheeganayaan iyo nasraaniga eebaha iyo khaladida ay sameynayaan dhan maartay loo nisbeyn maayo islaamkii waxa weeye waa dad sheeganaya yahuudiya nasraaniya kitaabkoodana waxa ku yaala sifadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo sifadii saxaabadiisa dadka rumeeyay marka in nabi weyn la soo diri doono oo masiix ka dambeyn doona ayay qirahayaan kitaabka u yaala nabiga marka inuu akhlaaqdiisu aad u fiican tahay oo nin ma ida badan yahay oo hadii xataa oo meel sarqan badan caleemo iyo yalyaalin marahay sarqantiisa aayar u socda oo nin dib badan oo qiimo dheer inuusan ahayn inuu yahay nin mahadin badan Allah ku mahadiyo ummadiisana ummad mahadin badan ay tahay waxyaabaha ku yaala marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markay arkaan dadka rumeeyay oo alxamdulillah qiraa'ada ku bilaabaya oo cunada deeqan alxamdulillah ilaahay hadii musiibo ku dhacay alxamdulillah ala kulli hal oo ku tasbiixsana inta subhanallah walxamdulillah oranahay waxay garanayaan in kitaabku u yaala inay marka kitaabkooda wuxuu ugu yeerahay inay diinta islaamka qaataan markay ku sheegaan way markay qarinayaan waa soo marnay inay xaq qarin jireen oo culimadooda aad u dhibanaayeen oo ilaahay subhanahu wa ta'ala sheegay in cilmi badan qarinayaan oo Allah ku been abuuranayaan waa la sheegay laakiin ninkii daacadnimo wuxuu fiiriyaa waa islaami jiray maxaa yeelay wixii kitaab ku yaalay iyo waaqicii muslimiintii baa iswaafaqay haddana markii gabadha ay markii hore ahayd gabar maaragtay sida u dhowrsoon ay ahayd oo yahuudiyada ama nasraaniyada ah haddana guri muslimiina ay tagto oo nin muslima uu weli u yahay mas'uul u yahay oo carruurteedii ay muslimiintii raacaan oo ilaa ninkiiba amraya carruurtii in diinta islaamka la baro marka carruurtii iyo ninkiiba israacaan muslimiin noqdaan iyaduna markii hore ka dhowrsanayd kitaabkeedina ugu yeerahayay inay nabi maxamed raacdo iyo maaragtay nabi dambe imaanaya kitaabkii uu sheegayay waxa la yiri markaas si haweenka muslimaadka ah oo marka hore kitaabka ahaa markay islaamaanna iyagoo dadkooda haddana ka asiirinayaan oo diinta kusoo jiidayaan marka waxa xigmada ay ahayd dadka kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu naxariistay inay islaamka maaragtay gartaan marka cunadoodii baa la baneeyay in wax la isla cuno oo cunada muslimiinta hilibka muslimiinta ay gowracaan in la siiyo waxa iyagu ay gowracaan in la qaato ilaa wixii sidiisa u xaraan ahaayo aayado kala xarimayaan sida khamradaas oo kale iyo laga cuni maayo iyo waxay u bireeyaan maaragtay ilaahay qeyr ku bireeyaan oo ku magacaabaan iyo laga cuni maayo laakiin wixii hilib u qashaan way wax la baneeyo
ahlu kitaabka marka sidaa bay ahayd xigmaddaa baana laga garanhayaabaa la yidhi in ilaahay subxaana watacaala uu u baneeyey haweenka laakiin islaamka sheeganaya oo laakiin ridoobay oo ahlu ridada ah iyagana wax baneeyey ma jiraan wax yidhi culamaa ulmuslimiin wax yidhi maarata haweenka ridoobay oo islaamka sheeganaya ilaa islaamku intii jiray waxaa weeye firaq badan baa ridoobay iyagoo isu malaynaya inay weli islaam ku sugan yihiin oo maxamed rumaysan yihiin oo aakhiro rumaysan yihiin ayaa ummado badan ridoobeen waagii abubakar baa ugu horreysay oo kuwii sakada diiday iyo kuwii musaylam alkadaab iyo kuwii mutanabiyiintii kale raacay abubakar sidiiq radiallahu canhu jooga bay soo baxeen waagii cali bin abi taalib kuwii isaga u sujuuday oo yidhi maaragtay ilaah baa tahay baa jiray oo gubay waxaa jiray maaragtay waadiyadii dambe firqooyin badan baa jiray macnaha firqooyinkii baadiniyada la ohan jiray baa jiray qaraamidadii baa jiray oo lala dagaalami jiray banu cubayd alqadaax baa jiray oo 270 sano ka talinaya caalam islaamiga barkii masar iyo galbeed wixii ka sixiyay oo dhan bay ka talinayeen يعني مصر iyo Tunis iyo Algeria iyo Libya wadamadaas oo dhan galbeedka ay haysteen Sham xataa mar bay qabsadeen marka dadka banu cubayd alqadaax waa lagu jihaadi jiray waxa loo arkay dadka dawladda muslimiin inay yihiin oo waxay caabudayaan ahlul bayt waxa kale oo jiray kuwii tatarka la oran jiray al-Imam Ibn Taymiyyah maaragtay waagiisii dagaal ku soo qaaday caalam islaamiga oo al-Imam Ibn Taymiyyah culimada kale ay la dagaalamayeen kuwaasina waa jireen dadkii maaragtay caabudayay qubuuraha iyo caabudayay awliyada iyo u yeeranayay ayaa jiray oo mar walba soo bixi jiray oo la dagaalamay marka firiqdaas oo dhan weligeed waa soo baxayeen waana la arki jiray marka lama arag wax baneeyay ma kuwaas oo yiri waa ahlu kitaab lagu qiyaasin waxa la yiri waa dad fidoobay oo hadii awood la leeyahay dil bay ku xukumay qof dil ku xukuman marka ma la goorsan karaa iyo hilibkiisa ma la cuni karaa iyo lama yiraahdo isaga wuxuu ku xukumay maaragtay dil wax yiri baa leeyahay murtadka yani haweenta murtadada ah waa la goorsan karaa waxa lama hayo أحمد بن حنبل بالويدية لجبر إسلام شجاني صوت صلاة الدين إن تكتب تارك صلاة هي جبر أهل كتابك هي اللي قرسنها يا بس سويها وحي أهل كتابك اللي قرسنها يا والله بين حلال هاي كان وحي يردل بين كل حكومة يجرا وغفل الدلها هي وكسر له قرسنها غفل الدلها مركز قالوا المعيار في مالها قار مارسي مركز هرب عن كتاب لهين ومسكوا أهل أوثان اللي يرادوا إلى هي وما أتيناهم من كتب يدرسونها وحكتوا مع الناسين اللي يريد هي قار كتب لسي أهل كتابة وأحكامته العقيدة يعني هي قار إسلام في نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصل دري قدام بيش يعنى لكن في الدوري والنبي يقول من بدل الدين ويحيي الدين بدل فقتلوه دل يري معيرة وابن آدم كلا لما عملها يو إيمانها يا مرت وإنتها ويسألونك وحي كويدينيان عن المحيض حيث يحكاوي دينيان ومرت هروحها عادة مارت عربت يهود مشركين عربت يهود وحل يعادوا وحوها gabadhu markii gasho xilliga maaragtay xaydka oo caadada arrintan ay tahay arrin dabiici ah oo fidr ah way ilaahay ku abuuray bani aadamka way haweenka lagu abuuray yani ilaahay waa ku qoray ala banaati xawaa nabi laga wariyay alayhi salaatu wasalaam gabdhaha xawaa dhashay ilaahay waa ku qoray maaragtay oo arrintaas waa arrin dabiici ah abuurista bani aadamka markii xilliga la gaaro waxa la yiri haweenta lama ay maaragtay cuntayn jirin gurigana kula ma jirin waa fogeyn jireen sidii wax la jaaso kale ayay u fogeyn jireen badan مرك الإسلام في مرك النبي ويدينا عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن المحيض وحكوا ويدينا يا المحيض قل واحد ترى هو يسوي أذن وحلا بالسوي يعني ما دام مارتي وسو مارت طبيعي وقف وها مرك ظاهر كها وكدويه وحا إمانا يا حتى اللي يروي أنا شايف وين كم يروح وحلا يرى أذن وحلا بالسوي فاعتزلوا النساء يكفوا هذا اللي يرى النساء هوين في المحيض اللي قاعد محيض فلانتاس معهن فلانتي يقولوا لو وضح حالي وحنا علينا وسيله نكاسك الوضع معي فلانتو حل شيء هي كيف قال شيء هي والنبي وحي عليه الصلاه والسلام اصنعوا كل شيء الا نكاح ما هذا واحد صار مسوي ولا كيف بناين ونظر waxa la yiri nabiga عليه الصلاه والسلام عايش waxa tiri meesha aan caanaha ka kabado weelka uu ka bashiray hilibka meesha ka goosay ku bashiray wax ma ahayn kala fogaana ma jirin soo dhabteeda ku jiifay waxa tiri uu quraanka akhrin jiray aniga xayba فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ودواننا ومعناها ودواننا ما في نكاح على شيء هي حتى يظهرن إلى بهرمان وحلق الجيران قفكي ودواننا فحليه كفارة لقدونا وأهل الدنبي أبي نغنيسا وشبيه مارك إلهي وحي وكفروا يروح وحكو عايب النغنية والدنبابي الدنبي أنا ما سحلي كفاريس وحوي وحديبه ويمارك وكتب الفروع على جهلية فإذا تظهرنا هذه بهرمان أو حلق جاران أو بهاردنا فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن وسجد لي من حيث أمركم الله ليس الله أمري أو إلهي أمري
وإلهي وصل الجلي وأنا هاي الماركي يعني فعل كقوم اللوط حرام ويعني حتى ضد قديم ضد قبح فعل كسو حرام ولا يهرلوها لا جعلها وقمضنا على حتى نمك وين نعرف إلى آدم وحرام نقول روح يجري غفه سمي فعل كقوم اللوط فاقتلوا الفاعل والمفعول قلت واحد سمي كالمسلم لولا هل الدين من حيث أمركم الله إن الله يحب واتعليه التوابين هو توكين كبران رسول الله وشوى بران ويحب واتعليه المتظاهرين هو الصهراء وحيانا الجازات كحمان تفضانه إلهي واتعليه. إعداد وتركيب الصور الفقير إلى الله أكرم عبد الفتاح علي. فما أغضأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وشيخ البرهان.